بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا دين سلامي ولا ليك الصوماليات قيمها إكرامها له مل والبأجوبتان. waxaan ku guda jirnay boogii markaas saddexaad ee boog 4000 essential English words ayaan ku guda jirnay. waxaan soo gaarnay markaas cutubkii saddexaad ayaan soo gaarnay. cutubkii saddexaad waxaan qaadanay part 1 ayaan qaadanay cashirkeenii hore oo waan kala jarnay laba qayb aan kala qaybinay. cutubka saddexaad qaybtiisa koowaad waan qaadanay page-kiisa markaas 20aad waan qaadanay. sidoo kale si la mid ah waxaan qaadanay qaybtiisii kale ee labaad waan qaadanay oo dhameystiraysa markaas cutubkaasi markaas page-ka 22aad waan qaadanay. waxaa ku xigay markaas su'aalo ayaa ku xigay. su'aalahaas ku xigo ayaan waxyar aan rabaa inaan waxyar aan dul maro kadibna aan u sii markaas ruqaansano markaas sheekadii markaas cutubka saddexaad ilaahay hadoo idma exercise kan waxa la yiraahdaa markaas exercise 1y cutubkii wuxuu leeyahay laba exercise oo leeyahay mid sheekada markaas ku jiro iyo mid markaas ereyada lehba. qaybtan waxa la yiraahdaa markaas part 1ka qaybtiisa ee waxa la yiraahdaa choose the right word ereyga ku saxan ama ku haboon for the given definition. qeexitaanka lagu siiyay ereyga markaas ku haboon dooro lagu yiraahdaa. tusaale ko waxa la yiraahdaa not strongly but qeexitaanku waxa la yiraahdaa not stronger but in a place shay aan si xoogan meel aanan u oolin maxaa markaas erey ah oo la siin karaa. ko waxa la yiraahdaa kid ciyaaris waay. maya laba waxa la yiraahdaa loose dabacsan waay. saddex c oo markaas disgrace sharaf dhac waay. afar oo markaas d waxa la yiraahdaa sensation waa dareen ama shucuur waay. kee ku haboon shay aan markaas si aan xooganeyn oo markaas habeesneen meel aan u oolin oo meel u yaalo maxaa la dhihi karaa maxaa lagu tilmaami karaa ereygaas waxaan dhihi karnaa waa loose oo markaas shay dabacsan. ereyga xiga waxa waaye qaybta labaad thankful mahadcelin. thankful waa mahadcelin markaas yaa la macno ah oo ku haboon lagu yiri ereydan lagu sii. kow waxa la yiri decent hufan. laba irritate ka xanaajin. grateful mahadnaq. offended dulmin. kee markaas ku haboon waa u jeedna waa c ayaa ku haboon oo mahadnaq ah. marka intaas waaye qaybtaasi. sidoo kale qaybta b waxa la yiri choose the right definition qeexitaanka saxda for the given word ereyga lagu siiyay ee markaas qeexitaan u doora lagu yiri. kow ereyga lagu siiyay waxa waaye banjo waa gacankan oo markaas hal shay oo is wada wato ayaa macnaha qeexitaankiisa uu yahay ee raadiya lagu yiri. waxa la yiri a group of things waa koox markaas sheeye ah oo isku jaan ah ayaa waxa la yiri banjo waa gacan. maya waxa la yiri b waxa la yiri a tool waa qalab waa ama aalad waa. saddex waxa la yiri a narrow road waa wada ciriir waa. afar waxa la yiri a wood waa alwaax from kiimaada a three gate. afartaas kee ku haboon waa lagu yiri banjo gacankee ku haboon waxaan leenahay a aw ku haboon waana c a group of things koox markaas sheeye ah. sidaas waaye. midka labaad elbow waa xusul. xusul maxaa lagu macneyn karaa tusaale wuxuu yiri picture sawir lagu macneyn karaa. b wuxuu yiri a mark waa calaamad on the skin ee kaaga taala maqaarka taas lagu macneyn karaa. c wuxuu yiri a part of arm waa qayb kamid ah gacanta taas lagu macneyn karaa uu yiri. d ugu dambeey wuxuu yiri a bicycle for snow waa gaari markaas barafka loo adeegsado. kee ku macneynina marka waxaan ku macneynina qaybta c ay ku macneynina oo ah qayb kamid ah gacantaada. sidaas waaye su'aalahaas cashirkeena maanta macnaha waxaan u soconay waxa waaye oo kaliya sheekada intaas waxaan ahayd dulmar oo markaas ku sameynayno su'aalaha. qaybta kale ee exercise 2 isaga waxa la yiri choose the word ereyga that is the better fit ee ku haboon for the each blank. meel habanaan markaas ereyga ku haboon laba erey lagu sii kala geliya lagu yiri. tusaale waxa la yiri imaan ayaa bood wuxuu soo iibsaday a big haye ax fashion uu soo iibsaday ama bayn geed uu soo iibsaday kala geli. he needed wuxuu u baahnaay to cut inuu jaro down inuu jarabo muxuu jarahay fashki muu jaraa ama wuxuu jaraa bayn geedkii. a three in his yard ee gurigiisa dhabarkiisa ku yiri.
tusaalaha marka aan ka shaqeyno halkaas xabo damaan ninka bood wuxuu soo iibsaday a big axe ay wuxuu soo iibsaday markaasi faash weyn ayuu soo iibsaday. He needed wuxuuna rabay to cut down inuu jaro a pine tree geedkaasi ayuu rabay inuu jaro oo baxsaafka ah in his yard ee gurigiisa dhabarkiisa ku yaala. intaas waa markaas ovendi iyo markaasi tiisi ay haddana markaasi meeshaan noo yaala. The bully waxaa la yiri markaasi dibiga likes wuxuu jecel yahay to offend inuu dulmiyo mise tiisi uu ka careysiiyo the smaller children caruurta yaryar. He does not now ma garanayo that in markaasi his actions ficilada uu sameeynayo markaasi ay offended them inuu ku dulminayo miya mise tiisi them oo markaasi kaga xanaajinaa soo ku forjana. bully kala yiraahdo likes wuxuu jecel yahay to tiisi waa meesha tiisi ay gelis inuu markaasi forjo the smaller children caruurta yaryar. He doesn't know ma garanayo that markaasi his actions ficladan uu sameeynayo offended them inuu si ayaga ku dulminayo. su'aalaha noocaas waaye aan kasii gudubno waxaan u gudbaynaa ilaahay hadoo idma muhiimadaan u soconay cashirkeena maanta oo ah markaasi sheekada cashirka ciwaankeedu waxa uu yahay the boy wiilkii and his sled iyo gaari markaasi barafkiisii gaari baraf ayaa waxa la yiraahdaa sled la yiraahdaa. Meg canuga la yiraahdo wuxuu ahaa the smallest child canuga ugu yar ayuu ahaa in school ee dugsiga dhigta ama iskuulka dhigta. Another boy wiil kale sidoo kale la yiraahdo Joy la yiraahdo always mar walba tiisad wuxuu forjayn jiray. Mike canuga la yiraahdo ayuu forjayn jiray. Joy canuga la yiraahdo markaasi had wuxuu lahaa a large scar xagtin markaasi dheer ama markaas ballaaran on his face ee wajiga ugu taalo. haye from waxayna uga timaatay xagtintaasi fighting dagaal uu la galay another children caruur kale. One day maalin canugaas xagtinta Joy ninka la yiraahdo offended wuxuu dulmi u geystay Mike ayuu dulmi u geystay. When markii he made oo markaasi uu ku sameeyay a fine markaasi isagoo markaasi waqti fiican la qaadanayo Mike's Valentine xabiibka Mike isagoo la qaadanayo waqti fiican Jane gabadha la yiraahdo la qaadanayo ayuu wuxuu ku sameeyay dulmi ayuu ku sameeyay. Mike canuga la yiraahdo oo u yaraa iskuulka felt wuxuu dareemay disgrace sharaf dhac ayuu dareemay sababtoo ah qofkii xabiibkiisa la taagnaa waan la dulmiyay. But laakiin he didn't know muusan garaneyn how to make a Joy stop sida la isaga difaaca canuga la yiraahdo Joy muusan garaneyn. sababtu waxa waaye markaas stoptan halkan waxay ugu jirtaa istaajin maahane markaas isdifaacis waa. That day maalinkaasi Meg ninka la yiraahdo walked down wuxuu iska aaday walked home down wuxuu aaday gurigooda ayuu aaday isagoo oo markaas maray an alley wada luuq isagoo maray ayuu gurigooda iska aaday. He found wuxuu helay markaas a bunch gacan of wood boards wuxuu helay markaasi gacan alwaxyo oo markaasi qoriyo ka samaysan ayuu helay nagasti oo markaasi yaala to pine tree geedka markaasi pine ka liiraado agtiisa markaasi ku xigaan ayuu helay markaasi. He thought wuxuu ku fikiray to himself isiga wuxuu ku fikiray I could build waxaan dhisi karaa ayuu yiri ama aan sameey karaaba a decent sled baabuur baraf ayaan samaysan karaa markaasi from this kani ayaan ka samaysan karaa. baabuur barafkan sled liiraado waa alwaxyo isku dhagan oo markaasi barafka inta la fuulo barafka lagu dul maro ayaa waxa la yiraahdaa sled liiraada. marka wuxuu yiri I could build waxaan samaysan karaa a decent sled markaas baabuur baraf from this alwaxdan ayaan ka samaysan karaa. If I let Joy haddaan u ogolaado markaasi Joy ninka la yiraahdo use it inuu isticmaalana he will be nicer to me wuxuu noqon doonaa mid aniga iga wanaagsan and Jane iyo Janeba. He took wuxuu markaasi qaatay the wood alwaaxi home guriga ayuu u qaatay. Mike ninka la yiraahdo god wuxuu helay an axe fash ayuu helay. cut wuxuuna jarjaray markaasi the wood alwaaxi he used wuxuu isticmaalay nails musbaaro to make sure so u xaqiijiyo that markaasi the pieces gabalada were not loose in aysan ahayn kuwa dibacsan. As he walked so u shaqeynay he bumped wuxuu markaasi ku dirsaday his elbow xusulkiisa wuxuu ku dirsaday
on the boards alwaaxyadii ayuu ku dirsaday. The painful sensation shucuurta markaasi xanuunka ka soo gaaray made him ayaa waxay ka dhigtay went to cry inuu la ooyo markaasi. It was hard waxay ahayd markaasi jar shaqo adag ayay ahayd. It was hard jar shaqo adag ayay ahayd. But laakiin he persisted wuu ku adkaystay. He worked wuxuu shaqaynayay overnight ilaa habeenkii ayuu shaqaynayay. By morning subaxii the slate baabuur barafkii was finished waa uu dhameeyay. Mike ninkii la yiraahdo Khaled wuxuu u wacay markaan Joy ayuu u wacay on a telefoonka ayuu ka wacay. He said wuxuu ku yiri hi Joy haye come over to my house gurigeyga u soo degdeg ayuu yiri. Kaalay hadda ima durbuwa come over Maya come over igu kaalay waay my house gurigeyga right away hadda u soo degdeg immediately. Right away waxa waay waa immediately hadda ima waay macnaha. Joy ninkii la yiraahdo didn't know muusan garanaynin why sababta Mike cunuga la yiraahdo wanted uu rabo him isaga to come over inaad u tagtid. When markii Joy cunugii Joy la yiraahdo arrived oo yimid Mike ayaa markaas told wuxuu u sheegay him isaga Joy it irritated me waad markaasi iga xanaajisay. Another day maalin horaad iga xanaajisay. When you said markaad ilahayd mean axmaq ayaa tahay mean things waxyaabo axmaqnimo markaad ilahayd waad iga xanaajisay. About my car ayaad igu markaasi caysay to Jane markaasi agteeda ayaad igu caysay. You were not kidding maadan markaasi igu kaftamaynin when you said marka aad lahayd those mean things waxyaabahan axmaqnimada ah markaad ilahayd kaftan kaama ahayn ayuu yiri. But laakiin I'm not like you aniga ma jecli I just boldly waxaan samaystay hadda this slate baabuur barafkan and I will let you write it waxaan ku ogolaanayaa inaad fuushid with me aniga aad ila fuushid if you are nice haddii aad fiican tahay yiri. haye they become waxay noqdeen friends saaxiibo ayay noqdeen. And Joy wiilkii la yiraahdo was wuxuu noqday grateful mid u mahadnaqo dad markaasi make nigira was inuu noqday nicer to him mid isaga markaasi ka wanaagsan. He learned wuxuuna bartay markaasi dad in markaasi it's more fun in ay ka markaasi fiican tahay ama markaasi ka waqti fiican tahay to be nicer than to be mean inaad noqoto qof xun inay ka wanaagsan tahay inaad markaasi fiicnaato ayuuna halkaas ku bartay. sheekadii markaasi cashirkeeni halkaas ayay ku egtahay oo markaasi cutubkeeni saddexaad waxa loo sii gudbayaa markaasi exercise su'aalihi ayaa loo sii gudbaa waa reading comprehension waa markaasi su'aalaha waxa lagu yiri Mike calaamadee age statement rax walba waxaad ku calaamadaysaa T oo u taagan for through sax or ama F for false oo u taagan false. haye rewrite dibna u qor the false statement jumlada markaas qaladka ah to make them through si sax aad uga dhigtaa. haddii tusaale aad ku calaamadayso fa aad ku calaamadayso ama f aad ku calaamadayso oo macnaheedu false u yahay ayadoo saxan qor. haddii t aad ku calaamadaysana waxba uma baahnid markaas inaad dib aad u qorto. haye mid koowaad oo kaliya aan fiirinayna waxa la yiri hay sax maansiinina mise qalad laga rabo. horta waan akhrinaa Joy ninkii la yiraahdo offended wuxuu dulmiyay Mike ayuu dulmiyay by saying isukiri mean things waxyaabo markaas axmaqnimo about ku saabsan his Valentine xabiibkiisa markaasi Valentine oo la yiraahdo Jane. sax miyaa mise waa qalad adiga laga rabo markaasi. Joy cunuga la yiraahdo wuxuu dulmiyay Mike ayuu jurmiyay isagoo ku yiri markaasi wax axmaqnimo ah saaxiibtiisii Jane. cashirka markaad u laabato aad fiirisaa haye waa kana waxa la yiri Joy waa kana had Maya when they join Nicoleado ayaa offended wuxuu dulmay Mark ayuu jimay when he made on Valentine's giant waa kaasa. marka jumladaas saas waxay sax ku tahay in markaasi Joy uu dulmiyay markaasi xabiibkii oo Nicoleado Mike uu dulmiyay. marka sidaas ay sax ku tahay halkaas waxa siinaysaa sax T ay siinaysaa. tan labaad waxa leeyahay Mike ninkii la yiraahdo farmer wuxuu helay a bunch gacan of pine trees wuxuu helay markaas gacan geedka la yiraahdo pine ayuu helay. sax miyaa mise waa qalad? sax miyaa mise waa qalad? maya qalad waay. sababta waxay tahay
wiilkan wuxuu helay markaasi alwax bunch of wood bodies ayuu helay alwaxyo markaasi qoryo ah ayuu helay oo gacan qoryo markaasi wuxuu helay gacan alwaxyo oo qoryo ayuu helay sidaas ay ku socotay waxa leedahay markaasi Mike wuxuu helay markaasi bunch of wood bodies ayuu helay saas ay socotay cashirkeena maanta halkaas ayaan ku soo gabagabeynaa salaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala